kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka xog iyo xaqiiqo. barnaamijka qaybtan waxaynu ku eegaynaa dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigreega. maxaa laga dhaxlay dagaalkii 7 bilood ka hor lagu qaaday kooxda TPLF ee waqooyiga Itoobiya. TPLF oo soo rogaal celisay iyo waliba boqolaal ciidankooda ahaa oo la arkay iyaga oo ku dabaaldegaya qaybo kamid ah gobolka Tigreega. maxay noqotay natiijadii laga dhaxlay dagaalkii ka dhacay waqooyiga Itoobiya? waa kuma ninka Soomaaliga ah ee ka barbar dagaalamaya ciidanka Tigreega. xogihii ugu dambeeyay ee colaadda ka aloosan gobolka Tigreega iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dagaalka Tigreega lagu qaaday ayaynu warbixintan ku milicsanaynaa saaxiibayaal. taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 5 bisha Juun sanadka 2021 u diyaargarooba barnaamijkaasi oo faahfaahsan. waxay ahayd 4 bishii November ee sanadkii la soo dhaafay markii xilli saqdaxa ahaa uu warbaahinta la hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed isla markaana shaaciyay howlgal military iyo dagaalka dhanaha gobolka Tigreega oo lagu qaaday kooxda TPLF. howlgalkan ayaa yimid kadib markii kooxda TPLF ay weerar culus ku qaaday saldhiggii militariga Itoobiya ay ku lahaayeen gobolkaasi, wuxuuna dagaalkaasi sababay khasaare baaxad leh oo soo gaaray ciidankii dawladda. intaasi wixii ka dambeeyay waxaa si buuxda u dhaqan galay amarkii Abiy Ahmed ee iclaaminta dagaalka dhanaha kooxda TPLF. howlgalka micnihiisa iyo ujeedkiisa wuxuu ahaa soo afjaridda xukunkii TPLF iyo awoodoodii muddada 30 sano ku dhow ay ku maamulayeen guud ahaan Itoobiya. meelo badan ayaa laga soo dhaweeyay howlgalkaasi ka dhanka ah kooxda TPLF maadaama ay cadaawad gaamurtay abuurteen intii ay dalka Itoobiya maamulayeen, waxaana ka mid ahaa qoomiyadaha sida weyn u soo dhaweeyay dagaalka TPLF lagu qaaday Soomaalida, Oromada iyo Axmaarada oo iyadu si gaar ah dagaalka iyo howlgalka qayb uga ahayd. dagaalka iyo howlgalkan oo u muuqday mid si kadis ah ku bilowday ayaa waxaa si wada jir ah u qaaday ciidanka militariga Itoobiya oo kaashanaya maleeshiyaad ka soo jeeda Axmaarada iyo ciidanka Eritrea oo xadka ka soo talaabay markii colaaddu ay ka qarxday waqooyiga Itoobiya. wuxuu dagaalku u socday si toos ah muddo dhowr iyo 20 maalmood ah, waxaana xeelad kasta iyo tab walba loo adeegsaday xoogagii TPLF si awoodda looga faramaroojiyo loona wiiqo xukunkoodii macangaga ahaa. intii dagaalku socday dawladdu waxa ay jartay gabi ahaanba isgaarsiintii si aan loo ogaanin wixii halkaasi ka socday iyo howlgalku halka uu marayo. dagaalkan waxa uu sababay baraka xoogan, dhimasho aan la qiyaasi karin iyo dhaawac ka sii daran, iyadoo dadka barakacay ay isugu jireen kuwa naftooda ula baxsaday dalalka dariska sida Suudaan iyo kuwa dalka gudihiisa u barakacay. hay'adaha xuquuqul insaanka iyo kuwa gargaarka iyo waliba wadamada reer galbeedka waxay sheegeen in xasuuq loo geystay dad shacab ah oo aan waxba galabsanin intii dagaalka uu socday, waxaana si gaar ah xasuuqan loogu eedeeyay maleeshiyaadka Axmaarada iyo ciidanka Eritrea. waxaa intii dagaalku uu socday soo batay baaqiyo caalami ah iyo kuwa maxalli ah oo lagu dalbanaya in dagaalka la joojiyo si gargaar loo gaarsiiyo dadka shacabka ah ee gudaha gobolkaasi ku dhibaataysnaa. wuxuu ahaa guluf muddo qaatay in kooxdii TPLF meesha laga saaro, balse ma noqonin miro dhal iyo sidii la moodayay midna. markii dagaalka uu socday muddo dhowr iyo 20 beri ah, wuxuu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ku dhawaaqay in howlgalka iyo dagaalka la soo afjaray maadaama TPLF awoodoodii la wiiqay lagana saaray deegaanadii Tigreega intii badnayd. waxayna xilligaasi ahayd markii TPLF ay ku dhawaaqday inay ka baxeen xaruntii Tigreega ee Maqale. markii dagaalka uu bilowday TPLF waxa ay wacad ku martay inaan la mahadin doonin dagaalka iyaga ka dhanka ah, isla markaana ay yaqaanaan dagaal iyo waxa uu yahay, iyagana ay guushu u dambeyn doonto. waxaa muuqata in hadalkoodii uu dhab noqday marka la eego dagaalka wajiyada badan yeeshay ee weli ka socda gobolkaasi. kooxdii TPLF waxay isu bedeshay jabhad gashay dhulka buuraleyda ah ee gobolkooda uu caanka ku yahay, waxayna bilaabeen dagaalo ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, iyadoo tan iyo markii dagaalka uu bilowday uu soo maray ama yeeshay wajiyo iyo marxalado kala duwan, wuxuuna hadda marayaa xilligii ugu adkaa. TPLF iyo Abiy Ahmed waxay isku noqdeen liqa iyo kamadege. soo ifbixiisii iyo noqoshadiisii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed markii muddo laga joogay wuxuu dareemay inuusan waxba ka wadi karin TPLF, isla markaana caqabad ay ku yihiin xukunkiisa, halka iyagu ay rabitaankoodii ka waayeen isaga
waxayna noqdeen kuwa kala aamin baxay isla markaana kala booday midba midka kale wuxuu isku dayay in uu meesha ka saaro waxayna isu adeegsadeen awood kasta iyo xeelad kasta markii dhammaanba tallaabooyinka ay qaadeen ay ku guulaysan waayeen waxay hawshu isu bedeshay dagaal iyo gacan ka hadal la isu adeegsaday nooc walba oo hub ah iyo isxulufaysi kasta oo ay isu samaysan kareen kooxda TPLF ma ahan koox si fudud looga takhalusi karo waayo markii horeba waxay ahaayeen jabhad dagaal ay la gashay xukuumadii dhargiga waxay guushu ku raacday iyaga sidaas ayayna dalka kula wareegeen waxayna Itoobiya maamulayeen muddo ku dhow 30 sano balse raaxadii iyo xukunkoodii dheeraa waxaa dacar uga dhigay Abiy Ahmed oo xal iyo waliba xukun dheeraysi isna u arkay inuu kooxdan iska horleexiyo si uu Itoobiya u maamulo muddo dheer dagaalka waqooyiga Itoobiya wuxuu noqday tusbax dabada ka furtay wuxuuna isu bedelay mid aan la qiyaasi karin xilliga uu soo gabagaboobi doono gobolkaasna nabad iyo xasilooni looga dareemi doono markii dagaalka uu bilowday horaantii bishii November dadka qaar waxay u arkayeen hawlgalka inuu qaadan doono muddo kooban oo maalmo ah isla markaana waqti yar lagu weeqi doono awoodda kooxda TPLF xukunkana looga faramaroojin doono balse dadka TPLF yaqaana ama aqoonta u lahaa iyo Itoobiya way arkayeen in arrintu aysan sahlanayn wadamada reer galbeedka oo ilaa hadda cadaadis ku haya dawladda Itoobiya waxay xalka kaliya ee xaaladda colaadeed ee gobolkaasi lagu soo afjari karo u arkaan wada hadal iyo xabad joojiye aysan shuruudi ku xirnayn balse dhinacyada ku dagaalamaya gobolka Tigreega inay kala adkaadaan dagaalkuna xalka yahay ayay u arkaan qaabka kaliya ee xasarada lagu soo afjari karo tanaasul iyo wada hadalna qorshaha uguma jiro 7 bilood kadib dagaalkii lagu qaaday waqooyiga Itoobiya ma noqonin sidii ay rabtay dawladda Abiy Ahmed ilaa maantana way taagan tahay colaadu marka laga reebo kooxaha dagaalamaya waxa meesha ku dhibaataysan shacab aan waxba galabsanin waxaana marar badan loo diiday hay'adaha gargaarka iyo warbaahinta madaxa bannaan inay gobolkaasi galaan si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ah ee dadka rayidka ah dhaxal fiican iyo natiijo qumantoona lagama helin hawlgalkii TPLF lagu qaaday taasi bedelkeedana dhimasho dhaawac barakac iyo dagaalkii oo si daba dheeraada wajiyo kala duwan yeesha ayaa laga dhaxlay waxaa jira nin Soomaali ah oo la sheegay inuu ka barbar dagaalamayo kooxda TPLF ninkan idin muuqda sawirkiisa waa Soomaali lagu magacaabo Yusuf Ibrahim wuxuuna ka barbar dagaalamayaa jabhadda TPLF ee dagaalka kula jirta dawladda dhexe ee Itoobiya Yusuf ayaa ka tirsanaan jiray militariga Itoobiya sida la sheegay 2004 tirsiga Itoobiya ayuu ka tagay wuxuuna noqday dhakhtar ka shaqeeya magaalada Adigrat ee gobolka Tigreega markii ay ciidamada dawladda Itoobiya la wareegeen magaaladaasi Adigrat ayuu ku biiray ciidanka Tigreega ee ka soo horjeeda dawladda sawirkan ayaa laga soo qaaday isagoo ku sugan buuraleyda gobolka Tigreega isagoo ka barbar dagaalamaya xoogga Tigreega Yusuf oo ah khabiir caafimaad ayaa daaweynaya dhaawacyada ciidanka Tigreega labadan sawir ee idin muuqda mid waa ka hor inta uusan ku biirin jabhadda midna waa hadda isagoo ku sugan dhulka duurka ah ama buuraleyda ee deegaanka Tigreega waxa soo laba kaclaysay xoogga Tigreega iyagoo la arkay ciidamo kumanaan gaaraya oo kamid ah kuwa Tigreega oo gaardi ku sameynaya qaybo kamid ah gobolkaasi xoogga Tigreega ayaa soo laba kaclayay muuqaal ay baahiyeen warbaahinta afkooda ku hadasha ayaa la arkayaa ku dhawaad kumanaan askari oo meel fagaara ah ama goob fagaara ah ku dabaaldegaya warbaahinta AB oo warbixin ka diyaarisay gobolkaasi ayaa sheegtay in dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya ee u dhaxeeyo xoogga Tigreega iyo dawladda dhexe uu muuqdo mid aan si fudud ku soo afjarmi doonin AB oo hadalkaasi u soobaysay in ay shacabku aad u taageersan yihiin jabhadda Tigreega taasina ay tahay sababta aan jabhaddan looga guulaysan karin dawladda dhexe Itoobiya ayaa urur argaxiso u aqoonsatay bishii May TPLF waxayna sheegaysaa inay guulo waaweyn ka gaadhay dagaalka ay jabhaddan la gashay dalalka reer galbeedka ayaa isku dayaya inay qaboojiyaan colaadda ka socota waqooyiga Itoobiya inkastoo dawladda federaalka Itoobiya arrintaasi ay gaashaanka u daruurtay arrimaha gudaha Itoobiya waa inay reer galbeedku faraha kala baxaan sidaasi waxaa yidhi safiirka dawladda Itoobiya u fadhiya dalka India dalka Itoobiya ayaa saaxiib dhow la ah dalalka India Ruushka iyo Shiinaha waxaadna moodaa inay Itoobiya noqonayso meel ay dalalka reer galbeedka ama caalamku ku hardamaan